general practitioners offices and delivery rooms in each of the capital's districts, as well as in the surrounding regions. The citizens shall be treated for free. Furthermore, we want to set up big modern non-profit kitchens and lavatories in the refugee camps to increase the people's standards of living. And now we are looking for young architects, engineers, teachers and doctors who would like to participate in our project. And Hassan will shortly make a video with detailed information. جالية Soomaalida ee magaalada Marlborough gudoomiye Samir ayaa aad ugu mahadceliyay hay'adda Somali Student Equal Opportunity mashaariicda ay Soomaaliya ka fulin doonaan. Horta markuu horeyso waxaan u mahadcelinayaa ururka ama dal ama hay'adda SSEO oo doonaysa inay wax badan u qabato qaasatan ardayda Soomaaliyeed guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka iyo Soomaaliya. ugu dambeyn madaxa ugu sareeya hay'adda SSEO Somali Student Equal Opportunity Hassan Buraale ayaa sheegay in ay garab istaagi doonaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaya in ay wax ku bartaan gudaha dalka Jarmalka. meeshii dhalinyarada ay ka soo tahriibi lahaayeen waxaan rabnaa 20,000 ay ku soo tahriibayeen wadankan jaamacad inay uga dhigtaan dhinaca bachelor ha noqoto ama master ha noqoto sida daraadeed lacagta ay ku soo tahriibaysid waa lacag aad wax loogu baran karo annagana ku suurtagelinayno in wadankan wax ku baratid lacagta yarta ay ku soo tahriibaysay wadankan hadda wax ku baratidna waxaad ka helaysaa shaqo weligaan waa joogaysaa inta shaqo haysid hadii kale wadankii inaan dib aan u dhisno wadankeeni markaan halkan wax ku baran wadankeeni inaan dib aan u dhisno ayaan rajaynaynaa sida daraadeedaan SSEO hay'adan taagan tahay sidii bilicda iyo dib u dhiska wadanka loogu soo celin lahaa waana ku wada shaqayn doonaa insha Allah dhammaan dhalinyarada SSEO waxaan rajaynaynaa qof walba dhalinyarana inuu nagu soo biiri doono. si kastaba haatee hay'adda Somali Student Equal Opportunity waxa ay xafiis labaad ay ka fura doonaan caasimadda Muqdisho iyadoo xafiiskooda koowaad uu ku yaalo gudaha dalka Jarmalka. Cabdikariim Xuseen Majaay, Dalsan TV, Germany.